السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وإذن السلام يا قيارة شرفت له ميل كستو الدنيا دعالة دي دافه ذات كجوكتان وقرنتي ولا صلي يا حبيب كينا محمد صلى الله عليه وسلم عمري دير إي عبادة صبني عافي ما قبان إذن رجينا وولاشين حاوتاكو برتا أدي قد داوانيسان أدي قاله سعطان أن إذن كلا صوها الله وبرتي عن يوتيوب ككلهاين وبرتان اسكلا سعون جرني وبرتيني هاتاكو لباتن حاوتاكو aniguna miyaa isku kin sheegayaa mar labaad waa walaashin xaawataako bariyahan waa la kala raagay rabadaankii ilaahay baa nabad noogu dhameeyay gabaabsigiina galayna waan ka cudadaaranayaa insha allahu tacaala sidii horeyba taxanaha ay noogu ahaan jireen ayay casharadeena taxana noogu ahaan doonaan maanta waxaan samaysanaynaa waa hamburger wax aad taqaano samayso waxaad taqaanid aad cuntidii maasha allah hamburgerka aad arkaysaan ama rootiga aad arkaysaan sida quruxda badan aan u sameeyay bal ila socdo sidaan u sameeyay iyo casharkan waxyaabaha uu ka kooban yahay marka u horeyso waxaan soo qaadanayaa baaquligan aan u baahnaa wax yar oo biyo badnayn baan ku shubtay sidoo kale waxaan ku darsaday hal qaado oo qamiiriso ama fixiso ah qamiiriso iyo fixiso labadaba waa loo yaqaanaa marka inta ayaan ku qasqasayaa wax yar baan daboolayaa allahumma salli ala maxamed oo isoo kacday haddana waxaan ku darsanayaa hal qaado sokor hal qaado oo subaga ama butter saliid baad ku bedelan kartaa in yar oo sidoo kale waxaan ku daray ukunta qaybteeda cad oo 2 xaba iyo qaybta jaalaha oo 1 xaba 2 xabay ahayd marka 1 xaba jaalaheedi waan la haray oo waxaan rabaa inaan hadhow dib ka isticmaalo hadduu ilaahay idmo insha Allah taala intaan ayaan isku qaqasaya isku dhex qasaya si fiican baa isku dhex gelinaya haddana waxaan ku darsanaynaa waa burkeeni baaquligan waxa igu jira waa 1 galaas iyo half bur ah sidoo kalena 1 galaas iyo half kale oo bur ah ayaan ku darsaday meesha 3 galaas oo bur ah ayaan ku shubtay wax yar oo faniilaha ayaan ku darsaday haddana mar labaad allahumma salli ala sayyidina maxamed burka qiyaastiisa waxay ku xiran tahay adiga intii habba aad rabto inaad samayso haddii aad yartahay waad ka yareysan kartaa waanaad ka badsan kartaa aniga burkan haddaan sameynaa waa 1 saxan marka 1 galaas oo caano kulul oo diiran oo qandaca ayaan ku darsaday burka waan soo xashay allahumma salli ala maxamed caanihi aad rabtana waad ku darsan kartaa markaan burka soo xashay waa kaasa sida quruxda badan ayuu ka soo baxay maasha allah bac yar baan korka ka saaranayaa 10 daqiiqo ayaan ka maqnaanaa insha allahu tacaala 10 daqiiqo kadib burkeena waa kana asagoo soo qamiiray xoogna uma soo qamiirin sababtoo ah mar labaad ayaa la qamiirinayaa waa kaasa uu soo kacay cajiinka ayaan ku guda celinayaa si fiican baa isugu guda celinayaa wax yar oo bur ah ayaad meesha ku shubanaysaa si uusan kaaga qabsan miiska ama hadba meeshii aad ku fidinayso in yar ayaad saa isku dul celcelinaysaa si uu karka iyo qamiirka ugu dhex laabto kadibna waa jarjaraynaa si aan u kuuskuusano hadduu alla idmo oo aan uga dhigano qiyaas oo ujeedaa sida uu u faxay gudaha siduu ka yahay maasha allah inuu diyaar yahay halkaasaad ka arkaysaa gacanta ayaan saa ugu wareejinaynaa marka kuus ayaad ka dhigaysaa geesaad ka celcelinaysaa wax yar oo qurux badan ayaad ka dhigaysaa yaa caadi ma ahan runtii waxaad kala samayn kartaa markaad kuusto burka oo si isla eg aad u kuusto ayaad intaad meesha saarato miiska ayaa waxaad samayn kartaa kasha wax lagu fidiyo ama usha wax lagu fidiyo ayaad wax yar ku balbalaarin kartaa adigoo aan qafiif ka dhigayn saxanka ayaan ku soo safnay hadda burkeena waad u jeedaan wuxuu noqday 12 xabo allahumma salli ala maxamed allahumma salli ala sayyidina maxamed salliga nabiga xataa wala gafgafay ilo salliga nabiga nagu sug waa kaasa markaan dabka ka soo bixinay rootigeeni ukuntii qaybteedii jaalahayd oo la haray ayaan dusha ka mariyay sida quruxda badan oo dahabiga ayuuna noogu soo baxay haddana insha allahu tacaala waa kala goynaynaa dhexda ayaan ka kala jaraynaa si aan ugu diyaarino wixii aan marin lahayn waxaan hadda aan marinayo waa butter ama waa subaga rootiga la marsado caadiga lagu cuno rootiga ayaan marinayaa waxaan rabaa inaan dabka soo saaro si uu iigu soo qalalo maadaama uu qoyan yahay uu kulul yahay waa soo qalajiyay allahumma salli ala maxamed sooskii aan u samaystay ayaan marsanayaa sooskan waxaan ka sameeyay waa mayonnaise iyo yaanyada ketchup oo la isku daray waxyaabihi aan dhexda ka gelin lahayn ama aan dusha ka saari lahayn oo dhan waa haysanaa hilibkan meesha aan ku haysto maanta ma ahan hilibkii aad hore iga barateen oo hamburgerka waa hilib caadiya oo aad aan u soo jilciyay
marka hilibkan ayaan ku isticmaalaynaa wax u diidaya ma lahan wax waajib gaar ugu ahna ma lahan hilibkii aad rabtaa ayaad ku isticmaali kartaa hilib jarjaran baad saaran kartaa hilib saafan ayaanad saaran kartaa hadda salarkii ayaan meesha saartay saa ujeedaanba yaanyaan saaray hilibkiina dusha ayaan kaga shubay qajaarkii iyo yaanyadii baa dusha kaga sii qurxiyey haddana sidoo kale waxaan saaranayaa waa basal iyo sidoo kale salar kale waxaan hadda aan kala furaayo waxaa weeyaan waa jiiskii ama waa farmaajihii aan dusha kasii saarayno allahuma salli calaa muxamed 2 xabo ayaan dhag ku siiyey 2 xabo markaas saar wax yar mayonnaise aan korka kaga shubayaa kajabna haddaad rabtana waad ku shuban kartaa haddii kale waa iska dayn kartaa aniga waa ku shubtay maasha allah oo kasaa dhag kale iska arag runtii caadi ma ahan isha wixii kaa deeqa ayaa uurka kaa deeqaa leeyahay halka ayaad ka aragtaa in uusan ahayn wax caadiya haddii aad quraacda noocan u barato canjeerana kuma hambaasaysid banaanna kasoo quraacan maysid waqti badan kaa qaadan maayo soo tijaabiya insha allahu tacaala waan rajaynayaa walaalo badan inay ka faa'iidaysan doonaan oo horeyna uga faa'iidaysan jiray casharadii aan soo gelin jirnay runtii aad bay muhiim kugu tahay inaad soo tijaabiso kadibna markii aad soo tijaabiso aad falcelinta commentiga hoose iigu reebto wixii aad kala kulanto yami inaba caadi maahan runtii aad buu kuu qancinayaa quraac kalena uma baahan doontid bannaan ma aadi doontid canjeero iyo sabaayad iyo waxaasoo dhan iskuma shidaynaysid subax walba intaan ayaad ku tuuranaysaa waqti badan wax qaadanayana maahan soo tijaabi waa laazim inaad soo tijaabiso feedbackana commentiga noogu reeb aad baad u mahadsantihiin daawashadiin iyo waqtigiina qaaliya